hadda oo buuq iyo social media ku arkayseen waxayna dhaqan u lahayn Soomaali hadaan nahay laakiin la yaab la bariyahan oo la yiraahdo kufsi iyo wax la mid ah wax aan aqoon jirnay ma ah ummadan Soomaalida dhaqankeeda suuban markii la fiiriyo gabdhaha waxa dhici jirtay intay xoolo ay soo raacaan gabdhaha iyo wiilashu maanta dhan xoolo isla jiraan inayna saa isu fiirinaynin isna taabanaynin walaashi oo kale u arkay gabadha ariga la jirta ee dariska ay yihiin ariga soo raacayaan waa walaashis waa isku xaq waa dhaqan suuban oo Soomaaliya jiray waa la soo waday la baabiyo markaas hadda waxa la keenay waxyaabo la yaab leh oo ay keenayso daraagiska iyo daroogada iyo waxa yaani aan aqooni oo la gelinayo markaas dhaqamo waxa soo baxay ayna shaqo ku lahayn see looga hortagaa marka see looga hortagaa innaga diinteena islaamku mushkil ka soo xalis laakiin kuwa waxa jira aan kala duwanahay dhaqanka laakiin dhaqankoodii say wax xalisanayeen ayaa inagoon isku dhaqan ahayn ayay rabaan inay wax xaliyaan mushkilaan inaga haysanin oo laakiin ayaga haysata ayaa jirta taas waxa kamid ah مثلا ninkii naagta isqaba labada isqabtay dadkaas banaanka jooga مثلا oo yaani muslimka ahayn yaani khamrada iyo cabitaanka iyo ku saabsan nooc waxa jira yaani gaangis oo kale cunfi ah oo si adag ay wada dhaqmayaan oo ninkii xaaskiisa isku dhacayaan oo haday rabaan ay xoogayaan sida marka waa mushkil haysata laakiin inaga mushkiladan haweenka iyo dadka isqaba ka dhaxaysay mushkilo weyn oo ma ah hadii isku dhacaata waa wax ku saabsan la xallin karo dhaqankeenu yaani nin iyo naagtiis waxay ku maamul hayden cawna ma nabadna ma waa dad mar isku dhac mar iska heshiiya bas weeda mushkil ma ta ayaga haysato ah nin iyo naag isqaba ayaa ninku intuu cunfi isticmaalo ayuu xooga markaas ay qeexayaan markaas nin labadii isqabtay waxay dhahan waa kufs haday saas dhacdo inaga ma kaas marka waa wax banaanka ku ay sameeyaan inaga nin naag isqaba isma kufsadaan mushkilaas ina ma haysato say wada dhaqmayaan ayaga yaqaan hadii bil isku qabtay iyo waxoogaa iyo waa dhici kartaa laakiin dhaqankeena Soomaaliga waa ceeb in la isugu yimaado arrimaha qoyska ee hoos ah sariirta iyo wixii ku saabsan waxa isugu yimaado yani waa laga xishoodaa laakiin ayagu waxay banaanku iska yeelan kama xishoonayaan qawaaniin ay u sameeyaan marka ninka naagta isqabay haday ninku uu xooga naagtiisa waxa lagu xukumayaa xabsi inta leeg hebel marka waxay baantay in la yiraahdo annaga mushkilada Soomaaliya hadaan ay nama haysato middan iyo darrada ah ee dhaqan xumida ah ee kuwa aan isqabin ay sameeyaan diinteenu si waxay uga hadashay hadii lagu fuliyo ruux fiirnaa la arkeen oo maxay tahay hadii nin aan qabin gabar intuu qori u soo qaato uu xoogo ama uu kufsado sida yaani loo yiraahdo diinteenu maxay arrintaas leedahay dadku markaa wax isku khaldaan zinada iyo kufsiga zinadu waxay tahay labada qof way is ogol yihiin laakiin kufsigu is ogolaansho ma ah mid qori soo qaadan markaas gabdha meel jooga ama koox intay soo kaxaystaan ay qoriga ku qabanayaan markaas ay xoogayaan noocaas oo kale markii la joogo zina ma ah waxa la yiraahdaa waa ikhtisaab ama waa kufsi qeexidiisuna wuxuu yahay kufsi waxa la yiraahdaa shariicada islaamka al-ikraahu bizina in zina la isku qasbo zina maxay tahay laba qof oo isqabin in la isku qasbo ila zina waxay ka dhalanaysaa labada isma qaban maxay isugu tageen waa zino waa xaraan say ku dhacday maraalahashay ku dhacday maya xoog bay ku timid al-ikraahu bizina xukunkeedu muxuu yahay saas markay dhacdo waxay galaysaa waxa la yiraahdaa al-xiraaba xiraabada waxa la yiraahdaa shuftanimada burcadnimada yani burcadku muxuu yahay burcadku waa midka xoolaha dadka ka qaatin tujidka u istaago in xoolo la qaato iyo in gabadh sharafteeda la qaato yaa dhib badan xoolaha roon xoolo la qaato waa la helayaa laakiin gabadh cafiifad ah oo muslimad ah intii guriga loogu soo galo oo qori lagu qabto oo la xoogo burcadnimo ka daran ma jirto kuwa saas sameeyay marka waxay la mid yihiin kuwa shuftada la yiraahdo xadul xiraaba la yiraahdaa inma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu marka maxay soo galeen wa yas'auna fil ardi fasadan ma fasad ka daran baa jira gabadh muslimad ah oo cafiifad ah in sharafteedii la dhaawaco oo xoog lagu isticmaalo ka kuwa sidaas sameynaayo waxay sameeyeen fasaadkii ugu darnaa wa yas'auna fil ardi fasadan
marka ku naasoo kala hadii intii la qabto markay ku cadaato xiraabadii aayadii ka taalay suuratul maa'ida lagu fuliyo qof walba naftiisu ugu jecel yahay suu marka ilaahay noo leeyahay walakum fil qisaas hayatun macnaheedu waxay tahay qofkan markuu dadka iska daynaayo wuxuu isaga daynayaa war naftaada waxaad ka jeceshahay mal hadaad qof isku disho adna waa lagu dilaa marka adoon dad u danaynaynin naftaada u danayo dadka iska daa nabada la helaa marka walakum fil qisaas hayatun saasa leeyahay marka hadii intaha kula caraadka talaabooyinkaas laga qaado qof dambe oo sameeynaya ma jirto kuwa marka reer galbeedka waxay sameynayaan ayaga dil ma qabaan waxay leeyahay kufsigu waa wax saas waxay qorayaan wixii ayaga yaqaanayna ilaahay ka yiraahdaan nin naag isqaba hatii naagta oo diyaar aan ahayn ama rabin odaygu uu ka oogo kufsi ku qorayaan isaga waxay waa kufsi oo waliga ma aragtay laba isqabto isku fsaris xagal waark kufsi ma akaas hadaa aysan muxuu haday iraan la hawtiri muska dhaafo inaga diinteena waa marka mesela gabdho ay macduur noqdaan mar xayda ku dhacaaya mar waxa umulay noqonaysa mar hawshaas oo kale ka macnaha waa la iska dhaafaya xoogna ma jiro hadii laakiin ayna xaydna jirin nifaasna jirin xanuun kala duu jira hata waa waxay iska fahmi karaano fiir ay waxay ka hadlayaan agta waxba kama laakiin naga agteena war dad laba isqabtay say hawshooda ku dhamaysanayaan iyo say iska yeelayaan mushkil kama dhex taagnee kuwa isqabinta iska daysaan ayaa wax dhamaysanayeen kuwa sharci darrada isticmaalaya aan meel uga soo jeesano aan dhahan xiraada la yiraahdaa kuwaas ayaga waa in la yiraahdo an yuqatal waa in la dilo ayo waxay ku dhaayeen maya waa in la xiro 15 sano 20 sano waa 15 sano lagu xukumay gabadh islaamiyada kufsaday markii 15 lagu xukumay xogaa markuu joogo maamulkii markaa jiray ayaa isbedelay haday rabaan waxay leeyeen afisa loo fidiyo way soo deynayeen hadii la soo daayna bari meesha iska sii bilaabaya marka maxaa baa loo kan mooska markii mesela bakhaar uu ku jiro hal xabo oo bolol haduu imaado oo bakhaarka lagu sii dhaxdaayo bakhaarka oo dhan wada bolol ka dhigaya maxaa xal marka xabadaas bololka ay xumaatay waa laga dhex bixinaya mooska uu badbaadaya kuwa marka mufsidiinta ah waa moos bolol oo bulshada ku dhex jira hadaan laga dhex qaban bulshada oo dhan ay wada bolol ka dhigayaan marka diinteenu waxa way kansarka waa la gooyaa marka noocaas oo kale waa nooc kansar waa la jaraa bas nabad iyo caafimaad loo baxaa laakiin kansarka isku celceliya inta ku xira xaga ku xir maxma ka tariistaa sayada marka diinteena ayaa xal kasta inoogu jira ummadan Soomaaliya waa ummad muslim ah diinteeda in loo ilaaliyo loo baahan yahay habka maamulka iyo say u qaadanayaana qabaa'ilka Soomaalidu odayaasha lagalama tashay qofka la magacaabaye qofkii la magacaabana ha u abtirinin oo waa reeyeen oo waa qabiilkaas iska la hadhina meesha uu qabtay midna ra'iisul wasaare ka soo qaad hadii la ra'iisul wasaaraha Soomaaliya hadii la yiraahdo dada waxay raayeen u tiriyaan reerkaas waaye reerkaas hadii la siin lahaa waxay noqon lahayd jabhad ayagu ay leeyihiin oo si 30 sano ka hor ummadeena Soomaaliya jabhad ay u kala ahaayeen jabhadii ma qof aan u dhalan meel loo magacaabi jiray jabhad kasta ninkeeda ayaga magacaaban jiray jabhad hebel gudoomiyeed waa hebel reerku ka dhashay laakiin dawladnimo iyo ummad markay noqoto jabhadnimo ma ah waa ummad oo dhan ayuu ka dhaxeeyaa marka saas daraadeed barnaamijyo iyo shaqo ama la isku macaarado ama la isku soo dhaweeyo abtir yaan la isku jeclaanin la isku nacbaanin maxay qof walba ilaahay meel buu ka dhaliyay qof aan meel ka dhalanina ma jirto dambi ma marka in meel laga dhasho waxa dambi ah qofku wuxuu sameeyo hadduu khaldamana hebel ayaa khaldamay hadduu saxmana hebel ayaa saxmay laakiin hadduu khaldamo hebel khaldamay hadduu saxsamo hebelna dowr kuma leh magacaabistiisa iyo xilka qaadistiisa marka ummadnimo in loo fikiraa rabaa hooseen isu dajinin oo qabiil iyo jabhad iyo inaan kala noqon marka aad uma sinjaakumullah khair intaasan ku soo gaarnaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadeena Soomaaliyeed meel ay jiraan ba Allah kulmiyo masaadkana waa kulli sidii caadi inoo ahayd inta ku dari jirteen Sheekh Umar ibn Khadaabna inoo furan yahay tabrucaadkiisa uu socdaa